kulanka guud ee golaha baarlamaanka dalkan Suudaan oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkan ayuu maanta khudbad ka jeediyay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo maalinkii labaad ay ku sugan yihiin magaalada tan Khartoum ee xarunta wadanka Suudaan. gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa khudbadiisa ugu horeyn waxa ugu mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka dalkan Suudaan iyo gudoonkooda iyo sidoo kale shacabka iyo dowladda Suudaan. waxaana uu ka hadlay sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka xiriirka soo jireenka ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa labada baarlamaan. معالي الرئيس، الإخوة والأخوات، نحن في عالم تسوده التكتلات الإقليمية والدولية، ومن حسن الخطة أنه يجمعنا عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية، ومنها اتحاد البرلمان الإيغاد، واتحاد البرلمان الإفريقي، واتحاد البرلمان العربي، واتحاد البرلمان الدولي، إلى عدد من المنتديات الدولية. وكان للسودان دور كبير في تعريب الإداري في الصومال في القرن الماضي، ونرجو أن نستعيد السودان الشقيق هذه الدور وأن تبدأها من البرلمان الصومالي. وفي الختام أكرر لكم شكري على إتاحة هذه الفرصة لتواجدي بينكم، وآمل أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين المجلسين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق طموحات شعبنا نحو المستقبل الأفضل للجميع. وفقنا الله وإياكم على طريق الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa khudbadiisa uu ka jeediyay kulanka golaha baarlamaanka ee dalkan Suudaan. waxa uu casuumad rasmi ah ugu fidiyay gudoomiyaha baarlamaanka dalkan Suudaan inuu booqasho rasmi ah ku yimaado Soomaaliya, sida uu gabagabada kulanka warbaahinta qaranka u sheegay habdhowraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Xasan Nuux. hadalka gudoomiyaha ayaa wuxuu taabanhay wax badan in ay muhiim tahay iskaashiga Soomaaliya iyo Suudaan. waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliya iyo Suudaan ka dhaxeeya waxaa kamid ah waxbarashada ay Suudaan siiso in ka badan 7,000 oo dhalinyaro ayaa hadda wax ka baranaysa. taasi marka waxay soo dhaweynaysaa in waqti aad u badan xiriirka labada dal la geliyo si ardayda wax ka baranhaysana ay u helaan ka warqab iyo is-ogaansho labada dal xiriirkoodu inuu wanaagsanaadahay, inay sare u qaadayso waxbarashada iyo ku noolaanshaha ardayda wax ka barata wadankan. sidoo kale wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu in iskaashiga labada baarlamaan uusan keli noqonin booqasho, inuu in lagu daro baarlamaanada kale ee lagu jiro haday noqon lahayd kan igad iyo kan jaamacadda carabta iyo kan adduunka iyo kan Pan Africa lajaanta noogu jirtan inay iskaashi gaar ah yeeshaan kuwa wadankani Djibouti, iyadoo ay hadda leeyihiin xidhiidh ka dhow baarlamaanada kale ee ka tirsan baarlamaanadaas. labadaas baarlamaanada aan ku jirnayna in aad loo xoojiyo labada baarlamaan xiriirkoodu inuu noqdo mid aad u xoog badan. sidoo kale wadankan Suudaan waxbarasho aad u badan ay taalo iyo khibrad aad u badan ay ku jiraan baarlamaankooda, in sare loo soo qaado qaybtii waxbarashada dhanka carabta ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca diblomaasiyadda iyo baarlamaanka iyo siyaasadda inay xoog ka siiyaan Soomaaliya wadankani Suudaan. gudoomiyaha baarlamaanka iyo waftigiisu maanta waxay mar labaad shaqadii ay u joogeen wadankana walaalahana ee Jamhuuriyadda wadanka Suudaan magaalo madaxdiisa Khartoum. waxaan maanta tagnay ahayd xarun weyn oo warshada oo lagu sameeyo diyaaradaha iyo hubka intaba. booqashadaas oo waqti dheer naga qaadatay, warshad aad u weyn oo lagu sameeyo tababarana loogu sameeyo ardayda wax ka barata kuliyadaha gaar ahaan engineering-ka bartay meel ay ku sameyn karaan tababar iyo khibrad badan ay ka heli karaan ayaan booqasho ku sameynay saaka subaxnimadii. sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ayaa booqday warshad diyaaradaha sameysa oo ku taala magaalada Khartoum, iyagoo halkaasi kula kulmay madaxda xaruntaasi oo sidoo kale ay tababar ku qaataan
ardayda kuliyadaha injineernimada barta ee dalkan wax ku barata. ugu dambeyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Suudaan waxa ay kulan kula qaateen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal. Ibraahim Gudle Isxaaq, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Khartoum.